wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga maxamed muuse diiriyo oo kamid ahaa gudidii madaxweynaha Soomaaliland u saaray qorshaha master balaanka ee loo sameeyay magaalada Wajaale oo ka hadlay arintaasi ayaa waxa uu si weyn u amaanay wasiirka wasaaradda hawlaha gudaha Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri wasiirka hawlaha guud oo hogaaminaya gudidayadan oo isagu aan maalin ka tag dhex joogay inta anagu hawlahii kale ee qaranka aanu haynaan intayada kale intooda badan oo aan babaxayno ku noqonaynay aanu mahad u celinayna oo aan iyagana xambalyeynayna dadweynaha reer Wajaale oo si wanaagsan u qaatay aragtidii xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland nala shaqeeyay iyaga iyo maamulkooda sidoo kale qorshe magaalada Wajaale waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Wajaale suldaanka gobolka Gabiley ushaweynta degmada Wajaalana ama cafuran bay ku soo dhaweeyeen aadna waxay ugu faraxsan yihiin oo u mahad celinayaan shacbiga ku nool degmada Wajaale madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland reer Wajaale boqolkiiba boqol waa dad wadaniina waa dal jecel waa dad madaxdoodana jecel xashiishka magaalada inoo dhex oolaya roobkiina wuu bilaabmay nin walba inta ku hor taala iyo ooda ku hor taala qof walba qaad si wax qabadkeenu u muuqdo dhinaca kalena xildhibaan Cabdilaahi Xuseen Cige oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee ka soo jeeda gobolka Gabiley ayaa ka hadlay qorshaha loo sameeyo magaalada Wajaale isagoo si weyn ugu amaanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena waxa uu dadweynaha ugu baaqay in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland la garab istaago ee gobolada bariga waxaanu si adag ugu jawaabay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Soomaaliland waxay yeelatay hoggaan go'aan leh hoggaan ay ilaahay ka bariyeen buu ilaahay siiyay markaad eegto talaabooyinka ilaa imka la qaaday 3 bilood jooga haybada dawladnimo soo noqotay madaxweynaha oo ciidankii qaranka ballan qaaday inuu xadku halku gaadhayo wax 60 kiiloomitir ka yarna hadda uu jiro xadkii Soomaaliland oo aanu leenahay dadka reer Soomaaliland hawsha waad ku hagrateen dawladda hadday tahay golayaasha qaranka iyo hadday dadweynaha tahayba oo leenahay haloo gurmado ciidamada qaranka oo hal garab joogsado oo xalala qabto oo sida gobolka Gabiley aanu ku suganeen ka soo jeedna ay u gacan qabteen ay gacan ugu fidiyeen gobolada kale ee Soomaaliland waxaan leenahay hawsha ciidamada gobol walba iska xil saaro waad ogtihiin sicir bararka waxyaabaha laga qabtay ee talaabooyinka socda ilaa imika aynu filaynay in dhawaan wax badan ka qabsoomaan waad ogtihiin hawdadii dawladnimo sida ay u soo noqoteen ee uu dalku hadda u marayo ee ay kala dambeyn u timid waad garan kartaa hadda oo aan Wajaale ku suganahay mashruucan ciidiba ka fulin karteen oo aan ciidiba ku dhici karin oo ku hambalyeynayno madaxweynaha iyo wasiirka hawshan gacanta weyn ku haya ee wasiirka hawlaha guudba ee gudidan aanu ka mid ka nahay gudoomiyaha u nahayba wax badan oo laga qabtay baan ku hambalyeynaa haddaanu deegaanka gobolkan ka soo jeedanahay ninkii Khayrlaawe xamar ka hadlay waxa la Khayrlaawe horta wax loo jawaabo ma aha dawaanin iska ciyayso ninka sheeganaya madaxweynaha xamar baan ka ahay ee aan wardhiig la gaadhin waxaan leenahay Soomaaliland oo dal xor oo madax bannaan madaxweynaha iyaga dalka ka taliya wuxuu ahaa kuwii isagoo siyaad bareed dalalka Afrika ugu xooga weyn ka mid ahaa dalkan ka xoreeyay u babax dhigay ka waxaan leenahay isaga hanagu soo degdegin hogaamiyaha iyagu waa kaasi ma reer Soomaaliland qof hadduu naga halayo qof dalka iyo dadka iyaga waanu difaacina Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV gobolka Gabiley